halow walaalahayga sharafta badan oo ku xidhan janaalka sahanwade maanta waxaan halkaan idinkugu soo gudbinayaa 10 waxyaabood oo aadan ka ogeyn madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. haddaba waa kuma Kim Jong Un? Kim Jong Un waa mid ka mid ah dadka adduunka loogu daawashada badan yahay, waana madaxweynaha dunida loogu cabsida badan yahay marka ay timaado sharciyada iyo xukuumadda la yaab kale ee uu fulinayo ninkan. madaxweynahan ayaa ka duwan madaxweynayaasha kale ee caalamka marka la eego nidaamka uu ku hogaaminayo waddankiisa. halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 10 xaqiiqo oo ku saabsan Kim Jong Un. fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad aragto janaalkan, taaba calaamadda guduudka ah, furana gambaleelka ag yaalla si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeenna dambe ee xiisaha badan. aragtidaadana noogu reeb dhanka hoose ee kommentiga. mahadsanid walaal. qodobka koobaad, Kim Jong Un waa generaalka keliya oo aan lahayn khibrad generaalnimo adduunkan, laakiin ah generaal. Kim Jong Un ayaa isku magacaabay generaalka guud ee ciidanka waddankiisa, isagoo waddanka madaxweyne ka ah si aysan ugu imaan wax afgembiya. wuxuu yidhi halkan, anaa ka ah ammaanduulaha ciidanka waddanka, mana jiro qof aan aniga ahayn oo xilkan qabanayo. tanina waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto keligii taliyaha. qodobka labaad, Kim Jong Un wuxuu waxbarashadiisa iskoolka ku soo qaatay iskuul ku yaalla waddanka Switzerland. xilligaas waxaa madaxweyne ka ahaa waddanka Kuuriyada Waqooyi aabbihiis Kim Jong Il. waxaa la sheegaa inuu ahaa arday aan ku wanaagsanayn dhanka waxbarashada, waxaana aad ugu adkaa maadooyinka xisaabta iyo sayniska, halka uu ku fiicnaa baa la yidhi muusigga iyo aamusnaanta faraha badan. waxaa la sheegaa inuu iskuulka ku dhiganaya magacyo kala duwan si aanan loo garan inuu dhalay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Il. qodobka saddexaad, Kim Jong Un waa madaxweynaha keliya oo aan la aqoon xilliga uu dhashay, laakiin waxaa la wariyaa markii uu xilka qabanayay inuu jiray 28 sano, waxaana lagu maransan yahay inuu dhashay sannadahan kale ah 1982, 1983 iyo 1984, laakiin waa madaxweynaha ugu da'da yar waqti xaadirkan dunida aan maanta noolnahay. qodobka afaraad, Kim Jong Un wuxuu amraa qaar ka mid a dilalka ugu arxan daran dunida, waana sababta ka dhigtay hogaamiye laga cabsado. hadda ka hor ayaa Kim Jong Un wuxuu aad iyo aad uga xanaaqay mid ka mid a sargaalada ciidankiisa, iyadoo lagu guda jiro baroordiiq loo samaynaya aabbihiis. sarkaalkan ayaa qamro soo cabbay kadibna ku dhex caajisay goobta munaasabaddu ka socotay. wax yar kadib, Kim Jong Un ayaa amray in sarkaalkaas keligiis lagu dhufto hal hoobiye, waana lagu dhuftay. waxyaalaha uu ku dila Kim Jong Un dadka waxay kala yihiin eeyo gaajaysan, diyaarado aan lahayn duuliye, hoobiye iyo dab ololaya. qodobka shanaad, arrinta cajaa'ibka ah ayaa waxay tahay in Kim Jong Un uu jecel yahay cuntada Maraykanka sida biisaha, hambeegarka iyo Faransa friiska waxa la yidhaahdo. daawade maahan haddii ay Ameerika iyo Kuuriya isdagaalsan yihiin inuusan cuntadooda cunayn, balse waxaan waa hiwaayad ama wax uu jecel yahay madaxweyne Kim Jong Un. qodobka lixaad, Kim Jong Un wuxuu taageero weyn u yahay mucjisada kubadda kolayga Michael Jordan iyo Dennis Rodman, waxaana kulmay Kim Jong Un iyo Dennis Rodman mar uu Dennis Rodman ku yimid dalxiis Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un ayaa aad u xiiseeya ciyaaraha basketballka, wuxuuna taageero weyn u yahay kooxda Chicago Bulls. qodobka toddobaad, Kim Jong Un ayaa caalamka arrin la yaab leh ee uu sameeyo uga yaabsaday markuu safrayo. madaxweynahan ayaa madaxweynayaasha kale ee caalamka uga duwan arrin u gaara isaga. haddaba maxay tahay dhaqankan u gaarka ah madaxweyne Kim Jong Un? arrintan ayaa waxay tahay markuu safrayo ayuu wuxuu horey u sii qaataa musqul isaga u gooniya. xitaa haddii uu diyaarad fuushan yahay, wuxuu wataa tuubooyin uu u isticmaalo qaab suuli ahaana. Kim Jong Un ma jecla inta badan inuu ku safro diyaarad, wuxuu ka jecel yahay inuu ku safro tareen iyo baabuur iyo wixii la mid ah. xitaa kulankii uu kula kulmayey Singapore madaxweyne Trump wuxuu watay musqushiisa iyo cunto isaga u gooniya. qodobka siddeedaad, ilaalada qaaska ah ee madaxweyne Kim Jong Un ayaa waxay yihiin 12 nin, kuwaas oo markuu baabuur ku soconayo geesaha ka ordaya, kuwaasoo dhammaantood ah milatari si qaasa u tababaran, iyagoo iska hagaaya ayrafoon dhagaha ugu wada jiro, waana ilaaladiisa qaaska ah ee uu ku kalsoon yahay. qodobka sagaalaad, sannaddu markay ahayd 2013 ayaa waxaa la waayay meel ay sal iyo cirib dhigeen 5 ka mid a 7 qof ee la taliyayaasha iyo wasiirada difaaca u ahaa xukuumaddii aabbihiis, waxaana ka mid ahaa dadkaas adeerkiis Jang Sang, waxaana lagu eedeeyaa Kim Jong Un inuu dilay dadkaas. qodobka 10aad, madaxweyne Kim Jong Un ayaa caafimaadkiisu u muuqdaa inuu yahay dhibaato joogto ah. waxaa la sheegay inuu qabo sonkor iyo dhiikar, waana 2 cudur oo dilaa ah. warbixin ka soo baxday koonfurta Kuuriya ayaa sheegtay in tan iyo markii uu madaxweyne noqday Kim Jong Un uu jirkiisu ku soo kordhay culays gaaraya 30 kilogaram, haddana culayskiisu uu marayo 130 kilogaram. dhaqaatiirta caafimaadkiisa dabiibta ayaa waxay gaaraysaa 300 oo dhakhtar,
waxaa la arkaya isagoo aan koontaroolayn xanaaqiisa oo caagadaha raadsinayo. dhakhaatiirta qaar ka mid a ayaa sheegaysa inuusan arkin xubintiisa taranka sababa cayil awgeeda. waad ku maasan tahay daawashada fiidiyowgan. fadlan la wadaag asxaabtaada. soo gudbiyaha barnaamijkan waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin. mahadsanid walaal.